idin salaamayna khiyaarta dhammaantiin meel kasta dunida kaga nooshihiin kuna soo dhawaada channelka Masbel. maanta waxaan idin wadnaa cabitaan aad iyo aad u muhiima oo faa'iido badan u leh jirka bini'aadamka. waxaana ka samayn doonaa 3 xabo oo qaanjeer ah ama cucumber ah, gobol ama sanjabiil ah. go'aasi weyn halkaas yaalo ma isticmaali doona insha Allah taala. waxaan isticmaali doonaa kan halkaan aad ka arkaysaan yaraga soo fiiqan. waxaan kaloo ku miiri doonaa markaan soo shiidna ka bacdi 2 xabo oo liindhanaan ah. liindhanaad kuma shiidi doono insha Allah taala, waan ku miiri doonaa oo waxaan ka rabnaa micnaha dhadhan oo sida lemonade ka ah in uu halkaas ka soo baxo. waxaan kaloo ku dari doonaa markaan soo shiidna ka bacdi half cup ama koob half kiisa oo sokor ah insha Allah taala. 2 galaas oo biyo ana waan ku shiidi doonaa insha Allah. haddii aad rabto inaad macnaha biilaan shiidana waad samayn kartaa insha Allah taala. waa haddii aad mashiinta loogu talagalay aad haysatid. anna markaan biyo aan ku shiidaynin waxaan isticmaalnaa mashiintaasi ayaan isticmaalnaa oo waxaa markaas ka soo baxayo 2 koob oo cabitaan ah. waa marka aniga iyo xaaskayga iskugu talagalnay 2 koob oo kaliya, laakiin maadaama caruurta dhan aniga iyo macna caruurteena dhamaan aan isticmaalayna insha Allah taala waxaan ku shiidi doonaa bahashaas ayaan ku shiidi doonaa maadaama biyo aan ku darayna insha Allah taala. waxaan rabaa hal mar inaan macnaha isdul taago faa'iidada uu leeyahay qaanjeerka ama cucumberka iyo faa'iidada uu sanjabiilka leeyahay ayaan ka hadla doonaa insha Allah taala in yaro kooban. waxaad ogtiin caabitaankani ma ahan mid macnaha warshad soo martay, ma ahan oo chemical iyo waxyaalo badan ku jira, ma ahan. waa mid aad gacantaada ku shiidanayso, waa mid fresh ah, waana wax organic ah. fruitkaada arkaysa ama qudaartaada arkaysa waa organic, waa wax si dabiici u baxay waaye insha Allah taala. waana waxyaalaha ugu fiican jirka bini'aadamka waxtarna u leh, caafimaadna u leh. faa'iidada markaan sanjabiilka haddii aan ka hadlo waxay macnaha waxyaalaha sanjabiilka uu faa'iido u leeyahay waxay tahay miisaanka ayaa lagu lumiyaa. miisaankaaga haddii aad doonayso inaad hoos u dhigto oo miisaankaada la dagaalanto waxaad isticmaalaysaa sanjabiil. macnaha sida loogu talagalay ayaadan u isticmaalaysaa insha Allah taala. waxaan idin xasuusinayaa shay kasta ee caalamka yaala ee la isticmaalo wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaare intaba uu keenaya. tusaale markaan ka soo qaadno, haddii daawo inuu takhtar kuu soo qoro, daawada inta u qaado lagu yiraahday in ka badan aad qaadatid caafimaad darray keenaysaa, xanuunay kugu keenaysaa daawada ay ahayd. haddii lagu yiraahdo 3 jeer 3 maalin ama 3 waqti min 2 u laq, haddii aad min 3 u laqdid dee adiga markaan jirkaada dhibaato u keentay oo faa'iido darro halkaas ka imaanaysa, caafimaad kama imaanayo. haddii haddana aad ka yareyso tayada lagu talagalay inta ka qaado lagu yiraahdo daawadaasi oo 2 xaba cuna lagu yiraahday 3 waqti min 2 ah min halaad cuntay, faa'iido kuma lahaanayso, cudurkaasna kama bogsoonayso. wixii lagu talagalay in macnaha lagu daaweeyo kama bogsoonayso, waayo tankii loogu talagalay in cudurkaasi ama jeermiskaasi uu dilo daawada dili lahayd waad ka yareysay. markaan shay kasta la isticmaalayna waa noocaasi. sanjabiilka haddii aad iska badiso dhibaato uu ku keeni karaa. haddii markaan intii loogu talagalay aad qaadatana faa'iido fara badan ayuu leeyahay. marka saas ayaan rabaa dadka inaan ka dhaadhiciyo insha Allah taala. markaan miisaanka ayuu lumiyaan irana markii koowaad oo miisaanka haddaad doonayso inaad yareysid waad ku yareyn kartaa adigoo markaasi toos ah u cabayo ama u isticmaalayo sanjabiilka. waxyaalaha kale ee uu sameeyaan waxaa ka mid ah waa xanuun baabiyo. xanuun baabiya loo isticmaalaa oo wuxuu la dagaalamaa madax xanuun ku haya, hataa waad cabi kartaa oo mataqaana madax xanuunkaasi uu ka dhacaya insha Allah taala. dadka mataqaana ay qaba waxa rheumatism la yiraahdo ama arthritis la yiraahdo xubnaha dadka xanuuna oo kaleeto uu u roon yahay mataqaana wala dagaalamaa. wuxuu kula la dagaalamaa inflammationka ama waxyaalaha bararka jirkaada ku yimaado kaleeto. haddii xubnaha ay ku bararaan ama gacmaha ay ku bararaan ama lugaha ay ku bararaan kaleeto, haddii aad sanjabiilka isticmaasho uu ka dhacaya bararkaas ayuu la dagaalamayaa. waxyaalaha kale uu muhiimada kale uu leeyahay waxay tahay wuxuu la dagaalamaa kansarka. hadday noqon lahayd kansarka jirka ku dhaco, hadday noqon lahayd kansarka ku dhaco caloosha ku dhaco, hadday noqon adig any kind of cancer ayuu macnaha la dagaalamaya. oo micnaheeda hadda macnaha idima lahi wuu daaweeyaa ma ahan, laakiin wax weyn ayuu ka taraya, mataqaana waxtar fara badan ayuu leeyahay. laakiin micnaheeda ma ahan wuu daaweeyaa oo kansarka lagu daaweeyaa waa daawadii loogu talagalay kansarka idima lahi. taasna macnaha yaana loo qaadanin, laakiin waxtar ayuu leeyahay, wuuna yareeyaa macnaha kansarka ama faafitaanka kansarka ayuu yareeyaa ama wax ka qabtaa weeyaan insha Allah taala. takhtarna mihiisa ha loola socdo. midda kale wuxuu la dagaalamaa ama uu yareeyaa waxa la yiraahdo samboorka. haddii samboor ku hayo, haddii aad isticmaasho sanjabiilka mataqaana waad ka ronaanaysaa insha Allah taala, ama mataqaana uu ka naaqsinaya. waxyaalaha kale uu u roon yahay waxaa ka mid ah
dad waxaa jira mataqaanaa afkooda uu soo shiiro ama uu soo uro ama neeftooda ay urto ama ay shiirto kaleeto haddii aad sinjibiilka isticmaasho taa nafteeda mataqaanaa qayb weyn ayuu ka qaadanayaa in urkaasi aad iyo aad uu hoos u dhigo insha allahu tacaala. haddii markaan aad iska badiso waxyaalaha uu leeyahay waxaa ka mid ah intaanan u gelin taasi waxtarkiisa anoo sii wado waad ogtihiin gabdhaha markay walacaan subaxii kaleeto aroortii waxay la soo kacaan ama la soo toosaan lalaba fara badan. sinjibiilka haddii aad isticmaasho ama gabadha sinjibiil ay isticmaasho ama wax uun sinjibiil ka samaysan ama cabitaan sinjibiil ka samaysan haddii ay isticmaasho waxay mataqaanaa hoos u dhigayaa lalabada faraha badan ee gabadhaasi ay dareemi lahayd subaxi markay soo toosto. xitaa waxaad ogtihiin gabdhaha markay takhaatiirta la kulmaan ee lalabana ay sheeganayaan walac ay yihiin takhaatiirtu waxay ku waaniyaan inay isticmaalaan waxyaalo sinjibiil ku jiro hadday noqon lahayd nanac laga sameeyey hadday noqon lahayd cabitaankiisa. taasna macnaha waxay tahay in uu yareeyo ama hoos u dhigo labada faraha badan ee gabadha ay dareemayso waqtiga ay ku jirto xaaladda walaca ama 3 bilood ugu horeeya ee uurka markay leedahay. markaan waxyaalaha markaan uu keeni karo ama dhibaatada uu keeni karo marka haddii laba ama hal aan ka taabto waxaa ka mid ah wuxuu keenaa haddaad iska badiso wuxuu keenayaa laabjeex fara badan. markaan in la iska badiyo waa laga wanaagsan markaan in yar oo macnaha qiyaas ah inaad ka qaadatid ayaa muhiim ah. waxaa kaloo macnaha uu keeni karaa ubac xanuun haddii aad iska badiso ubacdo ayaa mataqaanaa dareem xanuun aad ka dareemaysaa ama ubac majiir ayaa dareemaysaa haddii aad iska badiso. marka intaas ayaan macnaha kusoo koobaya xagga sinjibiilka insha allahu tacaala faa'iidada uu leeyahay. haddii aan u imaado qaanjeerka ama bahalka la yiraahdo cucumberka faa'iidada uu macnaha u leeyahay waxay tahay waxaa ka mid ah wadnaha ayuu xoojiyaa. dee wadna xanuun aa qabto kaleeto waxaan macnaha ku boorinaya qofka inuu isticmaalo. idinman leeyahay haddana waa lagu daaweeyaa wadna xanuunka lagu daaweeyaa ma ahan laakiin wuu yareeyaa ama qatarta qofka wadna xanuunka ugu jiro ayuu macnaha uu yareynayaa insha allahu tacaala. wuxuuna furaa xididada dhiigga wuxuuna mataqaanaa isku dheelitiraa dhiigga biniaadamka ama dhiig karka ayuu yareeyaa. waxaa kaloo mataqaanaa cucumberka uu maadaama uu ku yar tahay dufanta iyo sokorta ama macaanka uu ku yar yahay waxay dadka badanaa u isticmaalaan in lagu lumiyo ama lagu yareeyo miisaanka qofka siwa haweenka kaleeto markii miisaanka ay iska yareynayaan waxaan ku boorin lahaa inay cabaan ama ay ka samaystaan fruit ama ay jarjartaan oo sidiisa ay ku cunaan ama cabitaan ay ka samaystaan insha allahu tacaala. halkaas ayaanu kusoo koobaya waan soo fiiqi doonaa waan la soo jarjari doonaa insha allahu tacaala. waxaad ogtihiin caruurta kaleeto ma isticmaali karaan way isticmaali karaan cabitaanka noocaani ah oo sinjibiilka uu ku jiro sinjibiilka ilmaha waa mataqaanaa way isticmaali karaan laakiin haddana waad ogtihiin ilmaha kamarar qaar kaama ogolaanayaan wax mataqaanaa kuleel uu ku jiro inay isticmaalaan ama ay cabaan. waxaa kaloo ogtihiin badanaa takhaatiirta ma ogola ilmaha in la siiyo waa cunug markuu sanad iyo markuu ka yar yahay sanad iyo wixii ka yar lama siiyo malab waad ogtihiin waayo dheefshiidkiisa ma xamili karo. sidoo kale sinjibiilka kaleeto lama siiyo waxyaalaha sinjibiilka ku jira lama siiyo markuu sanad uu ka yar yahay laakiin markaan cunug markuu sanad ka weynaado malab waa la siin karaa sinjibiilkan waa la siin karaa hadduu markaas cunug uu kaa qaadanaya waayo macnaha sinjibiilku wuxuu yareeyaa xitaa qufaca ama hargabka iyo u roon yahay waad ogtihiin. markaan bal insha allahu tacaala halkaas ayaan kusoo koobaya waxaana idinku wareejin doonaa xaajiyadda iyada ayaa halkaasi kasii wada doonto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. السلام عليكم أصحابتي وادين سلامي ما شاء الله كسو دوادا ومسبل كوكين channel إن شاء الله كاسبوحوها حاجي جيجا ما شاء الله وحان هور وشيغ لها واسا هور وشيغي مركا أنينا وادين دمسترايا إن شاء الله كليو معان حاجي جيجا ما شاء الله و my best friend my husband and the father of my kids ilmihayga aabahood maasha allah. marka waxaan rabaa inaan idin tuso cucumberkii waa soo jarjarnay waxaa dhex yeelay sinjibiilkii yar ahaa oo fiiqnaa. waxaa kaloo soo raaciyay oon saa'id anaga qoysaan u jecelnahay mintiga wuu carfiyaa un maasha allah anaga saa'id aan u jecelnahay. saddexdaasaan rabaa inaan isku soo shiido. waxaa kaloo geeski ii yaalo oo markaan waxaa isku soo shiida aan rabaa inaan gadaal ugu daro sokortii oo half koobka ahayd iyo 2 xabo liinta insha allah. waan soo shiidayaa mashiinta qayladeedan diidayaa marka waa soo shiidayaa waa idin tusayaa la socod wanaagsan.
asxaabteeda qaaliga, cabitaankan waxaa la cabi karaa waqtiga quraacda kadib iyo waqtiga cashada kadib insha Allah. sidaas ayaa ogaanaysiin. asxaabay waa kaasa waan soo miiray. miiraha aan isticmaalana waa kan, waan soo miiray. dhinacaas waxaa ku jira sanjabiilkii, cucumberkii oon soo shiidoon soo miiray. intana waxaa iigu jiro liin dhanaantii gooniya u miiray, sokortiyan ku qasay, sirabaan ka dhigay, ma fahanta. waatana maasha Allah. marka inta waxaa ii yaala kanna waa gooni, asagana waxaa waaye qolofkii kore oo cucumberka. aniga waxaa uma tuuro cucumberkan. waxaa la dhigayaa cawadoo kale whip cream, kan heavy whip creamkaas aan la dhigayaa cream camal ka suubsana insha Allah. kanna waxaan ku daraa kan ka miire oo sanjabiilka oo ku jirana waxaan ka dhigaa ma tuuray, asagana scrub malabaan ku darsanayaa korka. scrub ugu dhiganaysaa gacmaha iyo lugahoo kale. marka waa kaasa maasha Allah. ayagana faa'iidadaas goonigay leeyihiin, waxba ma tuuri rabo intaa maanta shiiday. waa kana waa soo shiiday biyahan. haddaanu ku darayaa liintii sokortii insha Allah. la socodwan liintii iyo sokortii aan gooni soo hagaajiyaan ku kor darayaa. waa kaasa sirab waaye. asxaabteedii waa kaasa waan soo miiray maasha Allah. waa diyaar. waxaan kor ka gelin waa mint caleentiisa maasha Allah. waxaa kaloo idin raaci rabaa, waxaa fiican wax caafimaadka mar walba oo fiican in lagu dadaalo insha Allah. anigana markasta waxaan aan meesha soo gelinayo channelkaneeto wax caafimaadka u fiican oo waxtar leh. ma idinkula talinayo junk food ama cuntooyinka chemicalka uu ku badan yahay. saa iila socotiin aad ayaa idinka mahad celinayaa insha Allah. ka raali noqdo buubuuqa maqlaysin, waa caruurteeda. ilaahay ha barakeeyo maasha Allah. marka waxaa kale oo idin raacinayaa dhiirigelin waayo maasajada quruxda badan mar walba ii soo dirtiin. kuwa hore noola joogay waa ku mahadsantihiin maasha Allah. waqtigiina qaaskoona siiseen. kuwa hadda imaadena waxaan leeyahay soo dhawaada maasha Allah, welcome. waxaan igu caawisin oo idinka codsanaya dadkiina hore u joogay like share insha Allah. dadkiina cusubna insha Allah waxaad igu caawisiin like, subscribe, share insha Allah iyo comment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.